kulan wanaagsan daawade halkani waa channelka wararka ee Somali News ku soo dhawaada tabinta maalin qodobada idin kugu soo gudbi doono waxa qayb ka maamulka Hirshabelle oo shaaciye qabashada deegaan doorashadii labaad iyo xiisad ka taagan kuraasta qaar dacwad laga gudbiyay ayaan halkan idin kugu soo gudbi doonaa ciidamo kala taabacsan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Kulana Jees oo ah musharaxiin xildhibaan oo ku dagaalamay magaalada Dhuusamareeb iyadoo berri doorashadooda ka dhici doonta magaaladaasi iyo booliska maamulka Galmudug oo go'aan adag ka soo saaray dhacdadaas faahfaahin dheeraad oo ka soo baxaya qarax lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa Kenya oo ka dhacay xuduudaha ay la wadaagaan Soomaaliya wararka arrimaha doorashooyinka iyo kuwa kale ayaan ku faahfaahin doonaa tabinteena ee u diyaar garooba daawadayaal markale kulan wanaagsan daawadayaal waa 13 bisha Febraayo 2022 maalinimo axada waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad maqasheen iyo kuwa kale oo ayna faahfaahintooda guda galno haddii aynu ku hormarno magaalada Dhuusamareeb waxa ku dagaalamay xalay ciidamo ka kala amar qaata Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo sidoo kale Cabdullaahi Kulana oo ah laba musharax oo ku wada sugan magaalada Dhuusamareeb warar dheeraad ah ayaa laga helaya dagaalka u dhaxeeya ciidamo kala taabacsan musharaxiinta Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Cabdullaahi Aadan Kulana oo ku wada sugan Dhuusamareeb caasimadda Galmudug iska horimaadkan ayaa xalay ka dhacay gudaha magaalada waxaana ka hadlay dowlad goboleedka Galmudug oo dooneen culus u diray musharaxiinta ciidamada la degay halkaasi taliyaha saldhigga booliska magaalada Dhuusamareeb Gaashaanle Maxamed Aadan Warsame oo la hadlay warbaahinta ayaana sheegay in israasaantaas dhexmarta labada dhinac inkastoo aysan shaacin khasaaraha ka dhashay balse waxa uu tilmaamay in la xiray askartii ku dhiiratay falkaasi taliyaha magaalada Dhuusamareeb ayaa sidoo kale xusay ee booliska inuu dagaalka ku bilowday tuhun la xiriira telefoonada la dhacay balse dhaqso loo xaliyay tabashadaasi saraakiisha ciidamada uu khilaafka soo kala dhaxgalay waxaa kala dhaxdhaxaadiyay ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya shaqaaqadaasi waxay dhaxmartay ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu yiri war ka soo baxay taliyaha saldhigga magaalada Dhuusamareeb ugu dambeyntii waxa uu digniin adag u diray musharaxiinta ciidamada la dega caasimadda Galmudug waxaana tilmaamay in aan la aqbali doonin falalka noocan oo kale ah oo amniga magaalada dhaawac weyn u geysanayo waxaana xalay muddo kooban rasaas xoogan isdhaafsaday ciidamada kala taabacsan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Cabdullaahi Aadan Kulana oo ah laba musharax u kala tartamaya kuraasta hoob 138 u tartamaya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame halka hoob 40 u tartamaya Cabdullaahi Aadan Kulana inkastoo khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkaasi rasaasta ciidamada isweydaarsadeen aan la shaacin haddana waxaa jira khasaare ka dhashay oo labada dhinac soo kala gaaray Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo sidoo kale Cabdullaahi Aadan Kulana ayaana ah musharaxiin xildhibaan iyadoona maalinta beriya labada kursi iyo kuwa kale lagu dooran doono magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug inkastoo aragti ahaan iyo siyaasad ahaanba kala fog yihiin Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Cabdullaahi Aadan Kulana haddana waxaa Dhuusamareeb wada geeyay doorashada kuraastaas oo deegaan doorashadooda ay tahay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug Dhuusamareeb waxaa ka socda diyaar garowga ugu dambeeyay ee kuraasta xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyadoona maamulka Galmudug oo maalmaha soo aadan soo gabagabay doona deegaan doorashada koobaad ee maamulka Galmudug ee magaalada Dhuusamareeb inkastoo kuraasta qaar ay doodo adag ka taagayeen haddana inta ugu badan waxay u xiran yihiin shakhsiyaad gooni ah oo waa kuwa la soo og yahay qofka ku soo baxaya ka hor doorashada maadaama malxiis un kaliya la tartamayo waxaana shalay doorasho ka dhacday Dhuusamareeb xildhibaanada ku soo baxay doorashadaasi lagu codeeyay gacantaag kadib markay tanaasuleen shakhsiyaadkii kale ee la tartamayay doorashada Soomaaliya ayaa haatan si dardega u socotay iyadoona waqtiga loo asteeyay 25 bisha Febraayo ay ka harsan tahay muddo 12 maalin ah inkastoo maamulka Galmudug wali uusan qaadin deegaan doorashadii labaad doorashadeedii ay ahayd gaalkacyo taas oo caqabad dhankeeda ah maadaama waqtiga loo asteeyay uu yahay 12 maalmood kaliya ay naga xigaan dhaqdhaqaaq iyo sidoo kale diyaar garowga ugu dambeeyay ee doorashada berri ka dhici doonta iyo maalmaha soo aadan ee lagu soo gabagabanaya xildhibaanada golaha shacabka ee deegaan doorashada koobaad ee Galmudug ee magaalada Dhuusamareeb ayaana ka socota caasimadda maamulka Galmudug ee Dhuusamareeb maamulka Hirshabelle ayaa shaaciyay doorashada deegaan doorashada labaad waxaana kuraasta qaar ka taagan xiisad xoogan kadib markii shakhsiyaad gooniya loo xiray dhaqanka iyo odayaasha maamulaya kuraastaasna ay baaq ka soo saareen
dowlad goboleedka maamulka Hiirshabelle ayaa noqday maamulkii labaad oo ku dhawaaqa kuraasta deegaan doorashada labaad ee golaha shacabka si loo dhaqan geliyo heshiiskii doorashada dalka ee horey lagu gaaray magaalada Muqdisho 9kii bishii hore ayna soo dhaafnay. Guddiga doorashooyinka sida Hiirshabelle ayaa soo saaray liiska 13 kursi oo kuraasta taala gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kadib markii magaaladaas uu tagay Cali Guudlaawe madaxweynaha Hiirshabelle oo safgarad ka gaaray ee reer Hiiraan tabasho xooggan oo ka qabeen maamulkiisa. kuraasta doorashadooda la shaaciyay ayaa la qaban doona maalmaha soo socda waxa kale yihiin hoob 003 hoob 6 hoob 8 hoob 68 hoob 74 hoob 86 hoob 109 hoob 252 iyo hoob 274. 13 kursi oo guddiga doorashooyinka maamulka Hiirshabelle ay shaaciyeen ayaana maalmaha soo aadan doorashadooda ay ka dhici doontaa Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyadoo durbadiiba ay xiisad ka taagan tahay halkaasi maadaama kursiga hoob 86 oo u tartamaya agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Xaaji Daahir haatana la taliyaha madaxweynaha waqtigiisu u dhamaaday maalmaha soo aadan uu ku soo wajahan yahay Beledweyne iyadoona waxgaradka iyo sidoo kale odayaasha beesha iskala kursigaasi ay kaga digeen maadaama ay sheegeen odagii saxaaxa 2016 kursigaasi inuu muddo ka badan 4 bilood uu ku xareysan yahay fila Soomaaliya afduubna uu ku haysta Fahad Yaasiin waa sida hadalka u dhigeen. madaxda Hiirshabelle ay ugu baaqeen kursigaasi ay noqoto doorashadiisa mid daahfuran oo horey ugu fadhiya Faarax Cabdulqaadir haatan musharax mar kale doonayo inkastoo fila Soomaaliya ay la damacsan tahay inay ku soo saarto Fahad Yaasiin Xaaji Daahir la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Farmaajo. kursigan oo waayihii dambaba dood badan ay ka taagan tahay maadaama Fahad Yaasiin tuhan la xiriira dilka Ikraan Tahliil lagu tuhmayay Hiiraan ay ka soo jeedo waxaana cabsi laga qabaa sidoo u tagayo magaalada Beledweyne iyadoona hanjabaado xooggan durbadiiba la wajahayo. madaxweynaha Hiirshabelle ayana waxgaradka qaar ka mid ah beelaha iskala kursigaas ugu baaqeen in kursigaas uu noqdo doorashadiisa mid daahfuran isla markaana uusan shakhsi gooni u xiran oo beesha aysan raalli ka ahayn waa sidii Xuseen inkastoo la ogeyn sidoo u dhaqan deeli doona dalabka odayaashaasi haddana xogaha ayaa tibaaxaya in Fahad Xaaji Daahir oo maalmaha soo aadan uu ku wajahan yahay Beledweyne si uu soo qaato kursigaas oo haatan oo dadku u cadcad uu qayb ka yahay maadaama fila Soomaaliya inta ugu badan gacanta ay ugu jirto kuraasta magaalada Beledweyne ciidamo dheeraadana ay geysay magaaladaasi. Cali Guudlaawana sabab ay u ahaayeen inuu tago halkaasi in muddo xiisadii ka taagnaa gobolka Hiiraan ayaa madaxweynaha Hiirshabelle Cali Guudlaawe waxa uu soo xaliyay inta badan isagoona kulamo la qaatay saraakiisha kacdoonka hogaaminaysa waxgaradka beelaha dega gobolka Hiiraan ee tabashada qabay waxaana maalmaha soo aadan doorashada ay ka dhici doontaa deegaan doorashada labaad ee maamulka Hiirshabelle magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyadoona shakhsiyaadka kuraastaasi ku soo bixi doona inta badanba la sii saadaalinaya maadaama ay noqon doonaan kuwa loo xiro. doorashadii hore uga dhacday magaalada Jowhar ee caasimadda Hiirshabelle waxaa badi ku soo laabtay xildhibaanadii hore ugu fadhiyay ee matalayay 4 sano ee la soo dhaafay ka mid ah baarlamaankii 10aad ee dalka maamulka Hiirshabelle waxaana Cali Guudlaawe Xuseen inta ugu badan si lamid ah madaxda maamul goboleedyada kale doorashada golaha shacabka ay noqon doonaan kuwa loo xiro shakhsiyaad gooni oo kula tartamaya hal musharax oo malxiis u ah shakhsiga iyadoona taasi tira dhowr jeer laga diga maadaama aysan saameyn xooggan ku yeelanaysa heshiiskii ugu dambeeyay ee doorashooyinka ay gaareen golaha wadatashiga amniga qaranka. Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaana laga dareemaya diyaar garow xooggan ee ku aadan qabashada doorashada magaaladaas iyadoona saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale laamaha amniga kulamo la qaatay madaxweynaha Hiirshabelle kuna amray inuu isbedel muuqdo ee dhanka amniga laga sameeyo gudaha magaaladaasi si wax looga bedelo xaaladda doorashadana si nabad ah ay ugu soo dhamaato 25 kursi oo doorashadooda ka dhici doonta magaalada Beledweyne oo 13 ka mid ah la shaaciyay. waxaa haatan jira cabsi ku aadan in doorashada aan lagu soo dhameystiri karin waqtiga loo qabtay 25 bishan oo muddo 12 maalmood kaliya ay ka harsan tahay iyadoona maamulada inta badan aysan bilaabin deegaan doorashada labaad marka laga reebay Hiirshabelle iyo Koonfur Galbeed waxaana beesha caalamka iyo dowladaha kale ee taageera Soomaaliya xilligan cadaadis ku saarayaan hogaamiyaasha Soomaaliya in laga dhabayo waqtiga hore lagu heshiiyay inkastoo dowladda Mareykanka ay ku hanjabtay inay qaadi doonto tilaabo aysan mahadin madaxda Soomaaliyeed hadda waqtigaasi laga dhabayna. markaana faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa khasaare ka dhashay qarax ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Kenya lagu leeyahay gobolka xeebaha ee Lamu ee dalkaasi
qaraxan oo ahaa miinahaya waxaa lala beegsaday kulanyaha ay la socdeen ciidamada Kenya xilli ay ku socdaalanayeen halkaasi. Xogaha ay helinaya sheegaya in qaraxa oo ah mid dhulka lagu aasay lagula eegtay jidka ciidamadaasi kadibna shabaabkii aasay ay weerar ku qaadeen si toos ah oo khasaare ay ka dhashay. Saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka Kenya ayaa xaqiijiyay jiritaanka weerarkaasi waxayna shaaciyeen in ciidamada ay sameeyeen iska caawin xoogan kadib qaraxa lala beegsaday iyo weerarka tooska ah xigay kaga yimid dhanka Al-Shabaab. Sidoo kale ciidamada Kenya ayaa sameeyay qaraxa kadib howlgallo ay ku baadigoobayeen kooxihii ka dambeeyay weerarkaasi ee meesha ka baxsaday. Al-Shabaab dhankooda guulaha ayay ka sheegteen weerarkaas waxayna shaaciyeen in halkaasi ay ku dileen ugu yaraan 15 askari oo ka tirsan ciidamada Kenya. Sidoo kalena ay gubeen baabuur ka mid ah kulanyadii ay wateen ciidamadaasi. Inta badan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa weeraro ku dhufa ka dhaqaaqa ka fuliya gudaha dalka Kenya waxaana khasaaraha ugu badan uu ka soo gaaray ciidamada dalkaasi iyadoona xuduudaha dhow ay la wadaagaan Soomaaliya iyo gudaha shisheeye dalkaasba Al-Shabaab ay weeraro ka fuliyaan kuna sugan yihiin. Inta ayaan ku soo gabagabaynaa tabinta wararka aad kala socoteen channelka wararka ee Somali News qayaar mid lamid inta kulmi doono nabadgelyo.